السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت وعنا ونكسن دمان أحبابتي إنه وحراني فاميليا قرن كورس ميديا. هل كان نقل سعودان وقرن كورس ميديا يوغال كدنيا. وحان ما أنت سوق قادن دون ناسي كوبان. تاريخ ده بقر كي الدنيا ده أول حنتي ده بنا. مس شخص كي الدنيا ده أول عكت بنا يسومرا إسلام كها. بقيسونا ها منسى موسى. منسى موسى وحود شيء سند يكون لو بقول يسيدتكي. وحونا كده شيء قوس ككوان تليال ولالك أو بكر وحكم يبقر تويدي. إلا سند يكون صدق بقولي الله بيتمكي مركي وكتجي تو سميه دولي مدي الدنيا قرنجي أفريد تبنا دو بكر وحقاد ومشغولي بدوين تأتلانتيكا يا وحك الشيء وحال الشيء إنه سفر كوجلي لما كونوا مراكب يكون نام كونوا يسوق جرا ركضوا مرياضهم ويدو فين منهم ما يسنسولقون سكستبعاته ما سموه سووا حد حلي بقرطويدي وكتجي ولالكي أنتوا حكم كهاي بقرطويدي مالي آدا يوكرت وحنا قبصة أفريد تون مجالو ويكوجرتو مجال تنبوكتو بقرطويدا وحيف الدي لما كونوا ماي bilaabo doonta Atlantiga ilaa iyo Niger casriga iyadoo qaadatay qaybo kamida dalalka hadda loo yaqaano Senegal, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Guinea Bissau iyo Ivory Coast. Dhulka baaxad leh inta leeg waxa ka soo baxay kheyraadyo fara badan sida dahabka iyo milixda oo kale ama cusbada si aad u taqaanaba. Intuu xukunka hayay Mansa Musa boqortooyadii waxay weli hantiday kala baar dahabkii dunida hore u yaalay. Mansa Musa wuxuu si aan xad lahayn u helay ishii hantida ee aadka loo qiimeeyay dunida dhexe. Xarumo ganacsi oo weyn oo dahabka badeecada kale lagu kala iibsan jiray oo ku yaalay dhulkiisa wuxuuna helay ganacsiga oo dhan safarkiisii uu ku tagay Makka iyo xaramkii barakaysnaa inkastoo boqortooyadii Maali ay ahayd gurigii dahabka badnaa boqortooyada lafteeda si fiican loo aqoonin tani waxay isbedeshay markii Mansa Musa oo ahaa nin muslima uu go'aansaday inuu aado xajka Makka isagoo sii maray saxaraha iyo dalka Masar boqorka ayaa la sheegay inuu Maali ka soo ambabaxay isagoo wata 60,000 oo nin oo safara wuxuu ka haystay boqortooyadiisii oo dhan saraakiishii askartii goroolayaashii madadaalada bayac mushtarkii geljirayaashii 12,000 oo adooma sidoo kale iyo tareen dheer oo ay ka buuxaan ari iyo ido waxay ahayd magaalo saxaraha dhex socota magaalo dadkii deganaa ilaa adoomadeedii ku xidhnaayeen marar dahabka iyo xariirtii Faris ee ugu wanaagsaneyd waxaa loo raray boqolaal neef oo geel ah midkiiba wuxuu siday boqolaal rodol oo dahabka saafida waxayna arag ahaan ka sii xamaasad badnaayeen markii ay gaareen Qaahira halkaas oo ay si dhab ah ugu soo bandhigeen hantidoodii Mansa Musa wuxuu qiiro la miiloobana kaga tagay Qaahira al-Umaadi oo booqday magaalada 12 sano kadib boqorkii Maali uga sheekeeyay sida ay dadkii Qaahira u hadal hayeen sida awgeed wuxuu si xamaasad leh ugu qaybiyay dahabkii Qaahira oo uu 3 bilood joogay waxayna sababtay in qiimihii dahabku soo dhac ku imaado muddo 10 sano ah kuna keentay dhaqaale burbur shirkadda tiknoolajiyadda ee fadhigeedu yahay Mareykanka ee smartasset.com ayaa ku qiyaastay qiimo dhac dahabka dartiis in Mansa Musa uu xajkii u horseeday ilaa iyo 1.5 bilyan dollarka Mareykanka qasaare dhaqaale burbur oo ka dhacay bariga dhexe Mansa Musa ayaa markii uu dalka dib ugu soo laabtay wuxuu mar kale ka sii gudbay dalka Masar sida ay sheegeen dadka qaar wuxuu isku dayay in dhaqaalaha dalka Masar uu ka caawiyo isaga oo ka saaray qaybo kamid ah dahabkii hore ugu qaybiyay kana amaahday lacago ay ka qaadanayeen deymaha Masar waxbarashada wadnaha ama waxbarashada ay kubcinteeda waxa aan shaki ku jirin in Mansa Musa ku qarash gareeyay ama ku qasaariyay dahab badan intuu xajka ku jiray laakiin waxay ahayd deeqsinimadii xad dhaafka ahayd taas oo sidoo kale soo jiidatay indhaha adduunka Mansa Musa wuxuu saaray Maali iyo naftiisa qariirad macna ahaan qariiradaas Atlas ee laga soo bilaabo 1375 sawir boqor ah ayuu ku fadhiyay arshi dahab ah oo ku yaala Timbuktu isagoo gacanta ku haysta qayb dahab ah Timbuktu waxay noqotay Eldorado Afrikaan ah dadku waxay ka imaanayeen meel dhow iyo meel fog si ay u eegaan qariiradaas qarnigii 19aad waxay wali ahayd maqaam quraafaad ah oo magaalo dahab oo luntay oo ku taalay cirifka adduunka taasoo ahayd difafaale ugaadhsadayaasha reer Yurub iyo sahmiyaalba taanina waxay si weyn oo sudhac ugu keentay faa'iideysigii Mansa Musa 500 sano ka hor Mansa Musa wuxuu ka soo laabtay Makka iyo xaramka isagoo hore u soo kaxaystay dhowr culimo islaam ah oo ay ku jiraan farci tooska Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam iyo abwaan Indonesian oo gabya ah iyo sidoo kale naqshadeeyay magaciisa lagu sheegay Abu Ishaq Islaahi kaasoo aad loogu tiriyo inuu naqshadeeyay masjidka caanka ah ee Djinguir Beer boqorka ayaa la sheegay inuu abwaanka siiyay dahab dhan 200 kiilo oo u dhiganta lacagta maanta 8.2 milyan dollarka Mareykanka dhiirigelinta fanka iyo dhismaha ka sokow wuxuu sidoo kale maalgeliyay suugaanta oo uu u dhisay dugsiyo maktabado iyo masaajidyo Timbuktu waxay dhawaan noqotay xarun waxbarasho waxayna u safreen meelo kala duwan adduunka si ay wax uga bartaan waxa
noqon doono jaamacadda Sankore. inta badan waxaa lagu tiriyaa inuu bilaabay dhaqanka waxbarashada ee galbeedka Afrika, inkastoo sheekada boqortooyadiisa inta badan laga aqoonin meelo ka baxsan galbeedka Afrika. kadib markii Mansa Musa uu dhintay sanadii 1337 daadiisuna ahayd 57 sano jir, boqortooyadii waxaa dhaxlay wiilashiisa oo aan awoodin inay wada qabsadaan boqortooyadii. dowladihii yareeraa way jabeen, boqortooyadiina way burburtay. imaatinkii dambe ee reer Yurub ee gobolka ayaa ahaa ciliyihii ugu dambeeyay ee sanduuqa boqortooyada. taariikhda xilligii dhexe ayaan weli inta badan loo arag inay tahay taariikh reer galbeed. waxaan inta kusoo koobaynaa masaan kusoo koobay taariikhdii boqorkii Mansa Musa, ninkii ugu taajirsanaa dadkii dunida soo maray. intaan kulantadeena dambe dib u kulmi doono waa anigoo ah Qadar Wadani oo inta idinkaga tagayo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.